isbaaro qori lagu wado yaan diiday 20 sano anoo jiro maanta anoo 50 sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeed wallahi baan ana qabalay annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax Soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro aniga shakhsiyan 20 sano anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadad isbaaro qori lagu wado yaan diiday 20 sano anoo jiro maanta anoo 50 sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeed wallahi baan ana qabalay nin kasta oo in kamid ahna hadii lagu sameeyana saasan ka taaganahay qof kasta oo adinka in kamid ah qof ii gooni ama yaan ka taaganahay waxaan rabnaa dawladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu tureynay waxaan rabnaa wadankan waa booga badan yahay waa la soo aruuriyay waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqeynayso dib u dhac dalka oo habeen iyo maalin ka shaqeynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalaqaybin hor leh dadka Soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan wax allaale wixii mas'uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas'uuliyadooda annagana Ilaahay baa marqaati ka ah waa ogtihiin waxa aan ka soo marnay dawladnimada Soomaaliya haddana mowqifkiyan ka taaganahay ma rabna in hal maalin dib u dhac uu dhaco ma rabna in hal maalin gadaal loo noqdo ma rabna in dawladnimada Soomaaliya ay nayrsato ma rabna in maxay ahaydey aan Soomaaliya caqabad ku noqono waliga annagana kumaana noqon haddana ku noqon mayno Soomaalina waa ogtahay ilaa iyo 60 xornimada la soo qaatay ilaa iyo maanta Soomaaliya waxaan u taagnay dawladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda haddana sidii aan ugu taagana laakiin waxaan yeelaynin dulmi annaga gaar noo ah waxay garan waayeen si ay dhiig annaga ku banaystaan inay hataa laba qof nagu soo daraan haday rabaan inay dilaan aqliga baa ka dhumay si ay dhiig annaga u banaystaan waxay inay laba nagu soo daraan wadaa inay laba mid hawiye ah iyo mid daarooda nagu soo daraan yeehay si ay dhiig annaga u banaystaan laakiin adinka kaligiina idin isbaaro idin dhiganayna wax aqli qof bina aadan uusan ku fikirin waaye aniga shakhsiyan go'aankayga kana idin sheegay waaye waxaan rabnaa inaan hore u socono waxaan rabnaa laakiin inaan dulmiga diidno